السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالية كسو دوادا channel keena fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe ta like share comment-ga waa inoo faa'iido idinkan wax idinka badhibayso maanta waxaan ka hadli doonaa sida halkaan uga jeedaan saddex shay oo aad ugu wanaagsan mandiqada xasaas ah ama meelaha madmadow gabdhaha aad bay u yaqaanaan sida bowdiyaha dhexdooda hadii aad isgoyso oo kaleeto ama madowga ku dhashta iyo sidoo kaleeto waxaan ku daweyn doonaa maanta saddexdan shay iyo kilkisha hoosteeda kilkisha hoosteeda qof kasta kilkisha way taqaanaa marka waxa weeye halkan waxa inoo yaal saliid saytuun iyo maa wardi iyo liima dhanaan waxa soo qaadanaysaa weel waxa ku miiranaysaa liima dhanaanta waxa u baahan biyaheeda sidoo kale waxa ku daraysaa laba qaando oo ama saddex qaando oo saliid saytuun sidoo kaleeto saddex qaado oo waxa ku daraysaa maa wardi ah intaas ayaa weel isku shubaysaa waa isku walaaqaysaa kadib waxa soo qaadanaysaa suufka marka soo qaadato meelihii aad u baahneed inaad iskaga dhaqdo ama madowga isaga biiso ayaa maxay waa ku soo qaadaysaa suufka waa ku tirtiraysaa waa marinaysaa marka insha Allah ta'ala ma ahana kiimiko sideeda banaan ba aniga waxyaabaha aan soo gudbiyo kiimiko kuma jirto insha Allah ta'ala waa wax aad u dabiiciya cid kasta ama qof kasta gurigeeda laga helayo inta badan waana wax aad u wanaagsan faa'iido badan meelahaas oo kala xasaasiga ah kiimiko la isagama dhageeyo effect ay qofta u keeni kartaa marka ka faa'iideysta gabdho isqurxi adigoona kiimiko isticmaalin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.